Assalaamu calaykum kusoo dhawaada kanaalka Tarjumaad. Waxaan idiin soo gudbinaynaa sida aad nooga barateenba qiso aad wax badan ka faa'iidi doontaan. Nin Yahuudi ah ayaa wuxuu soo maray tuulo ay deganaayeen dad muslimiin ah, wuxuuna rabay in uu shaki ku furo culamada muslimiinta. Laakiin inta uusan tuulada soo gaarin ayaa waxa uu arkay qowsaar muslim ah. Yahuudiga wuxuu yidhi, waxaan ka bilaabayaa qowsaarkan jaahilka ah, diintiisa ayaana shaki ka gelinayaa. Yahuudiga wuxuu isugu muujiyey qowsaarka in uu yahay qof muslim oo musaafir ah. Kadib markii ay wada fadhiisteen ayaa Yahuudiga wuxuu yidhi, ma kula muuqataa annaga ka muslimiin ahaan inaan dhibaato ka marayno xifdinta Qur'aanka? Wuxuu ka kooban yahay 30 juz, waxaa ku jira aayado isku mid ah oo soo noqnoqonayo. Marka maxaan uga reebi la'nahay oo aan uga jaray la'nahay aayadahan soo noqnoqonaya maadaama wax faa'iidaha aysan lahayn, waayo waa hadal soo noqnoqday oo keliya. Kadib Yahuudiga wuxuu hadalkiisa sii raaciyey asagoo qosol dhagar ah qoslaya. Markii la jaro waxaa yaraanaya tirada 30 juz oo uu ka kooban yahay Qur'aanka, waxaana noo fududaanaysa xifdintiisa. Qowsaarkiina waa uu dhageysanayaa. Yahuudiga markii hadalkiisa uu dhammaystay ayaa qowsaarkii wuxuu yidhi, hadalkaaga waa uu wanaagsan yahay, waana lagu qanci karaa. Kadib Yahuudiga waa uu farxay, wuxuuna u maleeyay qowsaarkan inuu siriqda ku dhacay. Laakiin qowsaarka ayaa hadalkiisa sii watay, wuxuuna yidhi, su'aal ayaan qabaa. Ka waran jirkaaga soo ma laha xibno isku eg sida 2 gacmood, 2 lugood, 2 dhagood iyo 2 indhood? Maan kaa jarna xibnahan dheeraadka ah si miisaankaaga uu u fududaado, jirkaagana si fiican uga faa'iidaysto cuntada aad cunto. Waadna ka nasanaysaa qaadista xibnahan dheeraadka ah oo aan faa'iidada lahayn. Kadib Yahuudiga waa uu istaagay, alaabtiisa ayuuna aruursaday, waddadiisa ayuuna ku laabtay asagoo guuldaraystay. Wuxuuna yidhi, qowsaarkooda ayaa sidaan ah muslimiintan, bal ka waran culimmadooda waa sidee? Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Fadlan haddii aad ku cusub tahay kanaalkan Tarjumaad, subscribe saar, gambaleelkana riix si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub ee aan soo gelino.